kulanti wanaagsan daawayaal dhamaantiin meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada warar xiiso leh. Su'aashu waa xilligan Itoobiya ma aqoonsan kartaa Somaliland? Itoobiya waxay xarun u tahay midowga Afrika waxaana jira xeer ururkaasi AU u yaalo oo dhigaya inaan wadamada Afrika ee hadda jira la kala goynin. Itoobiya gudaha Soomaaliya kumanaan askari ayaa hadda ka jooga. Itoobiya xilligan dagaalo culus ayaa gudaheeda ka socda gaar ahaan labada gobol ee Tigreega iyo Oromia. Itoobiya maanta dariskeeda colaado ayaa ka socda iyaguna col ayay leeyihiin. Itoobiya xilligan wadamo waaweyn ayay coleysatay oo karaaci kara Soomaaliya haddii ay aqoonsato Somaliland. Itoobiya xilligan ma ahan Itoobiyadii hore xagga awoodda ciidanka iyo diblomaasiyadda dibadda ay ku lahan jirtay leh maanta. Intaasoo qodob marka la isu geeyo Itoobiya maanta kuma dhiiran karto qarax siyaasadeed oo ay wajahdo.